magacay waa Mahad Xasan Xuseen Cali magaca xarakada Al-Shabaab yaqaan waa Jacfar waxaan ku dhashay magaalada Afgooy xaafadda Buurfooli askolaha aadam baa soo qaaday على الميل هذا المكان واجب marka sidii hooshisa u dhimay labada qof sidii u dilay inkastoo ay si isdaba jooga u bedelaan qorshaha ay ku dhagrayaan shacabka Soomaaliyeed ay shirqoolka la goobayaan haddana ciidanka difaaca Puntland ayaa kol waliba kala dhantaalaya si taasi looga hortago ciidanka ammaanka Puntland ee BSF ayaa dejiyay qorshe si dhaba faylaha ugu jaraya qorshaha argagixisada ku soo duushay dhulweynaha Puntland dhacdadan waa qorshe si weyn u dhantaashay kooxda argagixisada ee Daacish Soomaaliya waa bilowga furfuridda shabakad lafdhabar u ahayd fulinta qorshahooda iyo gumaadka ummadda muslimiinta ee ku nool Puntland وقبشة أبشر محمود عبد الرحمن ومجلس عبد الرشيد وياي توشلة أبشر والله كوحدة داعش صوماليا يكبر قال لن تبورها على المسكاد وحنا وقابل سنة جنت قرشياشة كوحدة سيكوسو قلان جودها مقالوين كقبل كبري أبشر محمود عبد الرحمن توشلة أنت وسن كم من نقون أورك داعش وحا وكم دها أورك الشباب وحنا وسيتو سولش قينجري عبد القادر مؤمن وحل قاسي كم دها أورك الشباب كدب أنت وسن نقون horjoogaha guud ee ururka Daacish Soomaaliya Abshir Tooshle ayaa gacanta ciidanka ammaanka Puntland soo galay taariikhdu markay ahayd 6dii bishii January sanadkii 2011 isagoo aeroboortka magaalada Boosaaso ka dhoofinaya xaaska Cabdulqaadir Muumin hayeeshee Abshir ayaa gacanta ciidamada amniga Puntland ka baxsaday isagoo xilligaasi u doodayeen odayaal ay hayb qabiil wadaagaan Abshir ayaa kamid ahaa aasaasayaasha ururka Daacish waxaana uu qaabilsanaa u kaleynta guryaha dadka u socda ururka Daacish xilliyada qaybtoodna waxa uu geyn jiray hoteelada si ay ugu nastaan kadibna waxa uu sii gudbin jiray goobaha ay kaga sugan yihiin Daacish Soomaaliya ee buuraleyda Calmiskaad sidoo kale waxa loo soo diri jiray dadka Daacish ay soo fasaxdo ama kuwa ku soo xanuunsada buuraleyda Calmiskaad si uu ugu sii gudbiyo koonfurta Soomaaliya ama uu u geeyo dhakhtar caafimaad kooxda Daacish Soomaaliya qaybteeda Puntland ayaa Abshir Tooshle dalacsiisay waxaana laga dhigay madaxa amniyaadka u qaabilsan gobolka Bari marka laga yimaado haynta hubka kooxdu ku hawlgalayso kala nidaaminta kala gudbinta ragga kooxdu u soo dirayso gudaha magaalooyinka Puntland iyo kuwa buuraleyda ay u dirayso ama kuwa loo dirayo koonfurta Soomaaliya waxa uu Abshir lahaa amarada dadkii kooxdu ku dishay gudaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari dadka amaradiisa lagu dilay oo gaarayay 22 qof ayaa waxa kamid ahaa Cabdullaahi Sugulle Ilka Case intaas waxa u dheereed Abshir Tooshle waxa kale oo hayn jiray hubka iyo qaraxyada kooxdu u isticmaali jirtay ummadda reer Puntland in lagu dhibaateeyo dabagal dheer kadib ciidanka ammaanka Puntland ee BSF waxa ay Abshir Tooshle xogtiisa heleen 19 bishii 3aad 2019 isagoo xilligaasi ku guda jiray daadinta dhiigga ummadda muslimiinta ee reer Puntland muddo ku dhow hal sano ay ciidanka BSF ku hayeen dabagal 20 bishii 3aad sanadii 2020 ayaa ciidanka BSF howlgal qorsheysan ku soo qabteen Abshir Tooshle oo ahaa madaxii amniyaadka gobolka Bari u qaabilsanaa kooxda Daacish baaritaan dheer oo lagu sameeyay Abshir Tooshle waxa uu bixiyay xogta 3 qof oo ahaa shabakadii u fulin jirtay dilalka oo amaradooda bixiyo iyo qaabka ay wada shaqeeyaan aadan maxamed xasan oo magaciisa afgarashadu yahay Shaafici Ahmed Xasan Cali oo magaciisa afgarashadu yahay Cusmaan iyo nin oo magaciisa ku soo koobay Maxamed dadkan dhamaantood waxa ay ka amar qaadanayeen Abshir Tooshle ciidanka ammaanka Puntland ee BSF oo ka duulaya xogta ay ka heleen Abshir Tooshle madaxa amniyaadka Daacish Soomaaliya ayaa sameeyay howlgal lagu raadinayo ragga oo magacyadooda bixiyay si aan loo garan wajigooda dhabta iyo aragtida guracan ay ku mashquulsan yihiin waxa ay sameeyeen qorshe ay dadka ku dhex galaan magaalada Boosaaso gudaheeda ayay bilaabeen inay kaga shaqeeyaan gawaarida dadweynaha ee loo yaqaan dhaweeye
waxayna diiwaan geliyeen 2 gaari oo nooca barobakista ah waxaana xilliyada ay fuliyaan nin dilalka qorshaysan ay u adeegsan jireen inay kaga baxsadaan nin goobta ay wax ka geysteen ka hor inta aysan imaan ciidanka ammaanku 17kii bishii Ramadaan oo ku beegnay 9kii May sanadkii 2020 ayaa iska horimaad hubaysan waxa uu bartamaha magaalada Boosaaso ku dhex maray 2 kamid ah ragga magacyadooda la hayay ee ciidanka BSF howlgalkaasi waxa ku dhintay Axmed Cali Xasan oo magaciisa afgarashadu yahay Cismaan waxaana ciidanku isagoo oo dhaawac ay gacanta ku dhigeen Aadan Maxamed Xasan oo magaciisa afgarashadu yahay Shaafici ciidamadu sidoo kale waxa ay gacanta ku soo dhigeen gaarigii raggan ay wateen oo ay saaran yihiin 4 qarax oo u diyaarsanaa in isla maalinka la adeegsado iyo 2 qori oo AK47 baaskoolado iyo rasaas aadan ka hor inta uusan ku biirin kooxda Daesh waxa uu ka soo mid noqday kooxda Al-Shabaab sanadku markuu ahaa 2013 bilowgiisii waxaana uu ka mid ahaa koox argagixisa oo dagaal la soo galay ciidanka nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee ka socday dalalka Kenya iyo Itoobiya aadan waxa uu mar noqday madaxa amniyaadka gobolka Bari ka hor inta aan lagu bedelin Tooshle ka hor inta aan Shaafici gacanta lagu soo dhigin waxa uu toogasho gaadma ku dilay dad ka mid ah labeenta bulshada oo isugu jira askar ganacsato culimo aqoon-yahan nabadoono kuwaasoo amarada lagu dilay uu bixiyay Abshir Tooshle madaxa amniyaadka gobolka Bari dadka uu gaadmada ku dilay waxa ka mid ahaa Cabdulqaadir Cali Nuur oo ka mid ahaa askarta booliiska waxaana la dilay 20kii bishii 2020 Xasan Khaliif Muuse waxa la dilay 4tii bishii 2020 Jaamac Khurshi Aadan oo la dilay 22kii bishii 2020 Jaamac waxa uu ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Qandala Abshir Maxamuud Ibrahim oo ay dileen argagixisadu taariikhdu markay ahayd 12kii bishii 3aad 2020 Saleebaan Axmed Shire oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda Puntland waxa argagixiye Shaafici uu dilay taariikhdu markay ahayd 17kii bishii 3aad 2020 Faarax Maxamed Muuse oo ka tirsanaa waaxda cashuuraha bariga waxa uu arxan laawe Shaafici oo ka amar qaadanaya Tooshle ku toogtay 29kii bishii 3aad 2020 gudaha magaalada Boosaaso Cabdixakiin Maxamed Cumar waxa uu ka mid ahaa ciidanka dawladda hoose waxaana la dilay 20kii bishii 1aad 2019 Cabdicasiis Jimcaale Cali waxa uu ka tirsanaa ciidanka BNBF waxa la dilay 6dii bishii 5aad 2019 Cumar Maxamed Cumar waxa uu ka tirsanaa ciidanka daraawiishta waxa la dilay 7dii bishii 5aad 2019 Sharmaarki Maxamed Waabari waxa uu ka tirsanaa ciidanka booliiska waxaana la dilay 20kii bishii 5aad 2019 Xasan Maxamuud Argax waxa uu ka tirsanaa ciidanka booliiska waxaana la dilay 2dii bishii 7aad 2019 Xamari Qodax waxa uu ka tirsanaa ciidanka booliiska waxaana la dilay 3dii bishii 7aad 2019 Xasan Maxamed Garas waxa uu ka tirsanaa ciidanka daraawiishta waxa la dilay 12kii bishii 7aad 2019 Cumar Maxamuud Xaaji Yuusuf waxa uu ka tirsanaa ciidanka dawladda hoose ee Boosaaso waxa la dilay 9kii bishii 1aad 2020 Xasan Khaliif Muuse waxa uu ka tirsanaa ciidanka shaqaalaha dawladda hoose waxa la dilay 4tii bishii 2aad 2020 Cabdulqaadir Cali Nuur waxa uu ka tirsanaa ciidanka booliiska waxa la dilay 20kii bishii 2aad 2020 Cumar Maxamed Yuusuf waxa uu ka tirsanaa ciidanka laag waxa la dilay 25kii bishii Abriil 2020 Cabdulqaadir Axmed Jaamac waxa uu ka tirsanaa ciidanka booliiska waxa la dilay 27kii bishii Abriil 2020 docda kale shabakadan ka tirsan ururka Daesh waxa kale oo ay bartilmaameedsanayeen kooxda ay isku aragtida ka yihiin daadinta dhiigga islaamka ee Al-Shabaab waxaana bartamaha magaalada Boosaaso uu Shaafici ku toogtay Cabdiraxmaan oo ka tirsanaa amniyaadka Al-Shabaab ee magaalada Boosaaso oo uu ku dilay iskooska Xalwa Banaadir ee Boosaaso Mahad Xasan oo magaciisa afgarashadu yahay Jaafar waxa uu ku dhashay magaalada Afgooye sanadku markuu ahaa 2003 waxaana uu ka mid noqday argagixisada Al-Shabaab sanadkii 2017 oo kaga biiray isla magaalada Afgooye Mahad ma jirin cid ku qasabtay ka mid noqoshada ururka Al-Shabaab isagoo miyirkiisu joogo ayuu u bareeray daadinta dhiigga islaamka iyo gumaadka shacabka Soomaaliyeed si uu hamigiisa foosho xun ugu suuro galo ayuu tababar ku qaatay tuulada Saakow isaga iyo rag kale oo isku ajada ka ahaayeen daadinta dhiigga islaamka xilligii uu tababarku u soo dhamaaday Mahad waxa la keenay tuulada Mukayla halkaas uu ka aaday deegaanada Puntland waxaana uu ka qayb noqday shabakad la qorsheeyay in si dadban iyo si toos ah ay uga qayb qaataan qalqalgelinta amniga iyo xasiloonida Puntland
waxaana si uu qorshahaasi u hirgalo loo soo diray buuraleyda galgala ee gobolka bari xilligaasi wixii ka dambeeyay mahad waxa uu si toos uga mid noqday cadawga shacabka Puntland tiro dhowr jeer ayaa waxa uu ka qayb qaatay howlgallo la doonayo in lagu gumaado shacabka aan waxba galabsan iyo gaadmada xarumaha fariisimaha oo ciidamada difaaca Puntland dhagartii ugu horeysay ee uu mahad ka qayb qaatay ayaa noqotay weerar lagu qaaday fariisin ciidanka difaaca Puntland ay ku leeyihiin deegaanka Afurur inta kuma ekaan dhagarta uu mahad u geystay shacabka Soomaaliyeed horjoogayaasha kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ee buuraleyda galgala ayaa mahad u wareejiyay inuu ka mid noqdo amniyaadka kooxda si uu u fuliyo weeraro fulinimo ah oo lagu gumaadayo waxgaradka iyo labeenta bulshada Puntland waxaana loo soo diray inuu howlgallo ka fuliyo gobolka bari gaar ahaan magaalada Boosaaso dhagarqabe mahad si aan loo garan waxa uu deegaan ka dhigtay xire ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah si uu uga guuleysto qorshihiisana uga fushado isagoo ka tirsan ururka gumaadka shacabka Soomaaliyeed ee Al-Shabaab waxa uu bilaabay dilal arxan darro ah oo lagu beegsaday ganacsatada Puntland waxa kale oo bumbooyin ku tuuray bara control ay leeyihiin ciidamada difaaca Puntland mahad isagoo kaashanaya Cabdi Xaliin oo ka tirsan amniyaadka Al-Shabaab waxa kale oo ka qayb qaatay shirqoolkii lagu dilay Paul Antonio Formoso oo ka tirsanaa shirkadda DP World ee maamusha dekedda magaalada Boosaaso mahad waxa uu gurigiisa ku yaala kaamamka barakacayaasha dhanka bari ee magaalada Boosaaso uu dejiyay oo muddo kula noolaa gacan ku dhiiglihii dilka geystay waxaana uu muddadaasi ka caawinayay sidii uu magaalada u kala baran lahaa gacan ku dhiigle mahad ayaa sabab uusan isagu garanayn ku daadiyay dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee uu ku laayay amar ay bixiyeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysta buuraleyda galgala mahad waxa uu gacantiisa ku dilay shakhsiyaad muhiim u ah shacabka Puntland oo ay ka mid ahaayeen محمد يوسف علي وكترسنا عيدنka booliiska waxa uu dilay 16 bishii 12 ياسين أحمد علي وكترسنا عيدنka booliiska waxa uu dilay 20 bishii 12 بعرض جامع سعيد وكترسنا عيدنka dhiiranta waxa uu dilay 28 bishii 12 سول آدن جامع waxa uu كترسنا عيدنka dhiiranta waxana la dilay 28 bishii 12 Paul Antonio Formoso oo ka tirsanaa shirkadda DP World ee maamusha dekedda magaalada Boosaaso waxa la dilay 4 bishii 2019 waxaana uu mahad gacan weyn ka geystay dilka Paul Antonio Formoso oo uu fududeeyay Shucayb Cismaan Calula waxa uu ka tirsanaa ciidanka booliiska waxa la dilay 26 bishii 2019 Suldaan Bashiir Muuse Koonte oo ka mid ahaa isimada dubabka dhaqanka Puntland waxa dilay mahad iyo tiimkii la socday ee loo qorsheeyay inay fuliyaanin dilka Suldaan Bashiir Muuse Koonte oo ka mid ahaa isimada dhaqanka Puntland waxaana la dilay 8 bishii 3 Yaasiin Maxamuud Caduur oo ka tirsanaa shaqaalaha dawladda waxa la dilay 9 bishii 4 Cabdirashiid Cali Caynab oo ka tirsanaa ciidanka booliiska waxa la dilay 20 bishii 5 Siciid Aadan Baadi oo ka tirsanaa ciidanka Birmadka waxa la dilay 24 bishii 5 intii uu ku jiray falalka qalqalgelinta amniga Puntland waxa uu bumba gacmeed ku tuuray saldhigga Minjir xilli habeenimo ah waxa kale oo bumba gacmeed ku tuuray saldhigga dhexe ee magaalada Boosaaso mahad iyo tiimkiisa ayaa xilli habeenimo ah galiyay bartamaha magaalada Boosaaso taas oo loogu talagalay in lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka laanta sirdoonka ciidanka difaaca Puntland ee BSF ayaa helay xogta dhagarqabe mahad oo xilligaasi qorsheynayay fulinta dilalka dad kale oo ka mid ah labeenta shacabka Puntland isla xilligaasi ciidanka difaaca Puntland ee BSF laanteeda ka jawaabista howlgallada degdega ah ayaa bartilmaameedkeedu noqday hoyga uu degan yahay mahad iyo la socoshada dhammaan dhaqdhaqaaqyada shabakadan abaarihii labadii duhurnimo ciidanka difaaca Puntland ee BSF ayaa mahad kala soo wareegay saldhigga Minjir isagoo ka mid ah dad ay soo qabteen roondada mahad ayaa ku dhex dhuumaalaysanayay shakhsiyaad looga shakeeyay inay wada shaqeyn la lahaayeen ururka Al-Shabaab mahad ayay ciidanka BSF xogtiisa heleen inuu ku xiran yahay saldhigga Minjir baaritaan dheer ay ku sameeyeen gurigiisa waxa la soo saaray qarax nooca dhulka la galiyo ah oo uu ku qariyay meel ka mid ah qolkiisa oo uu qoday si aysan uga shakin cidda gurigiisa soo gasha hayeeshee ciidanka difaaca Puntland ee BSF ayaa iyagoo kaashanaya khibradooda la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab iyo dhagarta ay u maleegaan shacabka Puntland soo saaray qaraxaas oo ay doonayeen inay ku waxyeeleeyaan shacabka Puntland baaritaanka laanta dambibaarka ciidanka difaaca Puntland ee BSF ayaa mahad u sheegay inuu jiro nin kale oo lagu magacaabo
cabdixaliin maxamed oo magaciisa afgarashadu yahay cabdiraxiin oo ka mid ahaa shabakada ay ciidanku magacyadooda hayeen ha yeeshee kooxda argagixisada markii ay dareemeen in lagu daba joogo ay u bedeleen buuraleyda galgala cabdixaliin maxamed oo magaciisa afgarashadu yahay cabdiraxiin kolkan waxa uu magaalada u soo galay isaga iyo kooxu hogaaminayo inay fuliyaanin dilka ilaahay u naxariistay suldaan bashiir muuse koonte oo ka mid ahaa isimada dubabka dhaqanka Puntland dhagarqabe cabdiraxiin waxa uu horay dilal uga fuliyay gudaha magaalada Boosaaso aaga suuqa caanaha xalwa banaadir iyo iskooska alxarameyn cabdixaliin ayaa qirtay inuu ka mid ahaa kooxo isugu jira ismiidaamiyaal iyo kooxo loo qorsheeyay inay weerar ku qaadaan xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso taasi oo ay fashiliyeen ciidanka difaaca Puntland waxaana goobtaasi ka baxsaday cabdixaliin oo magaciisa afgarashadu yahay cabdiraxiin markii la buuxiyay gal dacwadeedka iyo cadeymaha argagixisanimo ayaa la horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland waxaana maxkamaddu markii ay dhageysatay ku xukuntay labadoodaba dil toogasho ah waxay maxkamadda dambiyada shanta gobol ku xukuntay eedeysane gacan ku dhiigle aadan maxamed xasan ina barre daahir muumin 28 jir dil toogasho